qisadani waxay ku saabsan tahay wiil yara iyo bisad wax dhashay oo ilmo dhashay. waa qiso aad iyo aad u cajiib badan. waxaa la yiri wiil dhalinyaro ah ayaa waxaa dhacday hooyadiis ayaa xanuunsatay, aad ayay u xanuunsatay. waxaana dhacday in hooyadiis ay ilbiriqsi kasta ay dhiman karto, yacni xaaladda adag ee hooyadiis wiilkaasi ay ku jirtay. wiilku waxaa la yiri hooyadiis waxay gashay koomo, waxaana la geliyay qolka gargaarka degdega ah. dhakhaatiirtii waxay awoodi waayeen inay hooyada la tacaalaan oo way ka quusteen. ilbiriqsi kastana waxay sugayeen ama filayeen inay dhiman doonto. wiilkii ayaa isbitaalkii ka soo baxay isagoo oo meesha uu marayo garanla welwel iyo walbahaar iyo murugo dartiis. waxa uu istaagay meel ma aragtay kaalin shidaala oo islahaa bensiin gaariga ku shubo. markaasuu wuxuu arkay bisad markaa dhashay oo ma aragtay kartoon ku dul dhashay, iyadii carruurteedii yaryarka ahayd oo aan xitaa carruurtu aysan awoodin inay socdaan maca hooyadood, waa hooyada bisadda ahe. waxa uu isweydiiyey talow yaa bisaddaas miskiinta ah meesha cidladaas joogta yaa wax siiya. waxa uu go'aansaday marka inuu bisaddaa caawiyo. wuxuu galay dukaan, wuxuu ka soo iibiyey qasacad kalluun ah oo kalluunka tuunada ah. kadibna waxa uu hilibkii siiyey, kalluunkii siiyey bisaddii. waxa uuna ku laabtay isbitaalkii. goortuu galay qolkii gargaarka degdega ah hooyadiis ay jiiftay ayuu hooyadiis ka waayay sariirtay ku jiiftay. waa uu yaabay. kalkaalisadii ayuu weydiiyey aaway hebla aaway, hooyaday aaway. markaasay waxay tidhi hooyada xaaladeedii way fiicnaatay, waxaana u gudbinay qolkan ay ku jirtay qolka ku dheggan. hooyadiis ayuu u tegay iyadoo ka soo baraarugtay koomaday muddada aadka u faraha badan ku jirtay. wuu salaamay, kadibna waxa uu weydiiyey hooyo yacni saans maxaa dhacay. se waxay tidhi riya intii aan koomada ku jiray ayaa waxaa la i tusay bay tidhi bisad iyo carruurteedii yaryarka ahayd oo gacmahooda kor u taagaya oo alle ii baryaya. wiilkii waa uu yaabay. ilaahay ayaa naxariistiisu meel kasta ay gashay. ilaahay dadka masaakiinta iyo dadka rafaadsan iyo xayawaanada rafaadsan innaga ayuu ina ku eegayaa. haddii aynaanu u gargaarin, haddii aynaan wax u qaban, waxa weeye xaaladeennu waa khatar bay gelaysaa. haddii aynu wax u qabannana ilaahay kurbooyinka iyo murugooyinka iyo howlaha iyo ahwaasha ayuu adduunka inagaga qaadaya, aakhirana ajarkeedii iyo sawaabkeedii sii dheer. marka bisaduhuna waxay ka mid yihiinba noolayaasha bini'aadanka ku dul noolo in la caawiyo ay mar walba u baahan tahay, waayo meel bini'aadan jooga maahane meel kale kuma noolaan karto. sidoo kale waxay qisadan aynu ka faa'iideynaa inay sadaqadu tahay dhakhtarka ugu fiican ee la isku daweyn karo. waa dhakhtarka ugu wanaagsan ee qofka hadduu caafimaad doonayo uu isku daweyn karo. qisadan walaal sii sheergaree si dadka faa'iidadu ay u camimto looga wada faa'iidaysto. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.